wafdi ballaaran oo ka socda labada aqal baarlamaanka labada gol uu ka kooban yahay baarlamaanka golaha shacbiga iyo aqalka sare uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka mudane Cabdi Xaashi waxaan ka qayb gali doonaa kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanada adduunka ee la dagaalanka fasaadka ama anti corruption oo ka furmi doona magaalada Doha 9 iyo 10 bisha December waa kalfadhigiis toddobaad oo baarlamaanada adduunka dhan isugu imaanayaan 194 baarlamaan adduunka oo ay ka wada hadlayaan sida loola dagaalami karo fasaadka corruptionka waxaa dhinac socda iyadana iskaashiga labada baarlamaan ee baarlamaanka Soomaaliya iyo Qatar heshiis ah wada shaqaynta labada baarlamaan guddiga xiriirka baarlamaanka Soomaaliya iyo Qatar guddiga saaxiibtinimada Qatar iyo Soomaaliya oo iyaguna wafdi ka socda 3 qof labada aqal golaha shacbiga iyo aqalka sare kaas oo anigu aan hogaamiyo u ahay gudoomiyaha guddiga xiriirka labada aqal